waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu soo dhaweeyay Sheekh Axmed Khaliif Sheekh Maxamed Rabiic oo kamid ah culimada geyga Soomaalida. Sheekhan oo ah sheekha ugu weyn xerta Qaadiriyada oo safar ku marayay qaar kamid ah gobolada Somaliland iyo sidoo kale geyga Soomaalida saddexdii bilood ee u dambeeyay markaana ka shaqeynayay fidinta diinta Islaamka ayaa soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana sheekha ku soo dhaweeyay xerta Qaadiriyada ee ku dhaqan magaaladani Burco kuwaasi oo kaga hortagay tuulada qoyto oo dhinaca galbeed kaga beegan magaaladani Burco. Haddaba culimada xerta Qaadiriyada ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay Sheekh Axmed Khaliif Sheekh Maxamed Rabiic oo ah sheekha ugu weyn xerta Qaadiriyada waxaana kamid ah hadaladoodii baanu halka u joognaa ku soo dhaweynaa gobolka Togdheer magaalada Burco Allahumma salli tuulada qoyta marka halkaasaan culimadii u joognaa ku sugaynaa ku soo dhaweynaa ku soo dhawaada baan leenahay gobolka Allahumma marxaba baan leenahay culimada soo dhawaada culimada xerta Sheekh Maxamed Rabiic waxa soo dhawaada baan leenahay dawladda iyo shacab dhammaan annagoo ah shacabkii reer Togdheer dhammaantood madaxdeedii iyo shacabkii dhammaantood annagoo wada matalayna halkan waxaan u leenahay gacmo furan baan idinku soo dhaweynaa Sheekh Maxamed Khaliif Sheekh Axmed Khaliif Sheekh Maxamed Rabiic iyo waftiga la socota annagoo u hadlayna shacabka reer Togdheer culimada xerta dariiqada Tibaweyn waxa weeye waa culimada kaliya ee la oran karo waxa weeye waa culimo badaxla waxaan ku boorinaynaa inay diinta juhli badan iyo maskax badan ay geliyaan culimadana gamca furan baan ku soo dhaweynaynaa wixii waxaan baliyayna ilaahay waan baliyay culimadii Qaadiriya oo Timayar iyo Tibaweyn iyo Qaadiriya kalaba leh waxaan ku soo dhaweynaa gobolka Togdheer madaxdii Qaadiriya ugu sareysay ayaan ku soo dhaweynay oo maanta halkan ugu timi oo dadka magaalada iyo ummadda dalka oo dhan u soo ducaysay oo dhul badan soo martay 3 bilood dalka u soo ducaynaysay oo duca tafadula oo bilaash ummadda u soo ducaynaysay ilaahay shuushka iyo xanuunada ka qaad culimada Qaadiriyada khaasatan xarta Sheekh Maxamed Rabiic mashaayiikhdii ugu waaweynayd oo soo martay dhammaanba waddankan Jamhuuriyadda Somaliland waqooyi bari ilaa min galbeed wafti ballaaran oo dalka ku soo wareegay oo u soo duceeyay ducada ballaaran ee bari iyo galbeed ay ku soo wareegeen dalka ayay maanta waxay ku soo guriye noqdeen gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burco. Dhanka kale afayeen u hadlay waftigan ballaaran ee hogaaminayo sheekhu ayaa ka warbixiyay ujeedka uu daaran yahay safarkani waxaana kamid ah hadaladiisii anigoo ku hadlaya waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo Sheekh Axmed Khaliif Sheekh Maxamed Rabiic madaxdii ugu sareysay Rabiiciya odayaal dhammaan oo aanu ka soo ambaxnay Dorraad caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa barbara soo marnay laba habeen baan joognay saakana barbaraan ka soo ambaxnay waxaanu aad iyo aad mahad ballaaran u celinaynaa sida qiimaha ballaaran leh ee quruxda badan ee loogu soo dhaweeyay degmada Burco mashaayikhdi way duceeyeen laga bilaabo maanta cudurka dib loogu arkay magaalada culimada ku ducaysay in ilaahay magaalada ka saaro waxa in ilaahay inoo ballaariyo barwaaqada yaa lagu duceeyay culimada ku ducaysay dhammaan dadka magaaladana duca la soo wada faray la yiri gaarsii ugu dambeyntiina waxa loo soo gulbiyay gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasoo lagu soo wareejiyay wadooyinka halbowlaha u ah magaaladani Burco sheekhan ayaa la filayaa inuu ku sugnaan doono magaaladani Burco maalmaha soo socda Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi telefishinka caalamiga ee Somali Cable Burco.